noo furmay 25-kii 23-kii bisha magaalada Djibouti maamulka Khaatumo iyo kan Somaliland maanta oo bishu tahay 30-kii bishii 3-2017 ayuu noo soo afjarmay waxaan isku afkaranay si buuxda wada saxaaxan labada gudoomiye wafdiga kala watay oo dhanka iyaga ka socday gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha wafdiga Maxamuud Shaqo Xasan dankoodana uu watay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Maxamed Boqorre qodobka koobaad sideed qodob ee maanta aan soo saxaaxanay waxaan isla qaadanay in aanu si sugan looga wada shaqeeyo arrinta nabadeynta ee u dhaxaysa beeraha walaalaha ah ee bahar sameeyo qayaad si buuxdana loo taageero la iskuna garab taago guddiga nabadeynta ee hawshan gacanta ku haysa isla qodobka koobaad eediisu waxay leedahay waa in wixii faragelin ah guddiga iyo nabadeynta ee waxyeelayn kara nabadeynta labadaas beelood meel loogu soo wada jeesto qodobka labaad waxaanu isla saxnay waxaanu si buuxda isula qaadanay in hawlaha abaaraha horumarinta deegaanada la isla kaashado si wadajir ah qodobka saddexaad isaguna wuxuu qoran yahay waa sidan waxaanu si wadajir ah ugu baaqaynaa in hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ay ka hawlgalaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka aanay hore u tegi jirin halkaas oo aanay iminka wax nabadgeliyo darro ahi ka jirin loona sameeyo guddi wadajir ah qodobka afraad waxaa la isla gaaray in maamul daadejinta aasaas u tahay nabad ku wada noolaanshaha kobcinta awoodda bulshada sidaa darteed waa in la gaarsiiyo oo la abuuro maamul iyo deegaano bulshada meelaha aanay horey ugu jirin hay'adaha samafalkuna doorkooda ay ka qaataan qodobka shanaad waxaan qoray waa in meel looga soo wada jeesta wax kasta oo caqabad ku ah wada hadallada labada dhinac qodobka lixaad waxaan isla qaadanay waa in wixii dhiig iyo dhaqan ku saabsan la iskala kaashado si wada jir ah golayaasha dhaqanka qodobka toddobaad waxaan isku afkaranay waxaa la isla qaatay in guddiga farsamadu soo diyaariyaan qabashada shirka dhambe soona cilaamiyaan goobta iyo goobta sida ugu dhaqsaha badan qodobka sideedaad oo ugu dambeeya waxaan isku afkaranay waxaa la isla qaatay yoolka wada hadallada inuu saldhig u yahay is-aaminaad wada shaqayn nabadgelyo horumar dhanka safar wabillahi tawfiiq intaas qodobadii kusoo koobaya anigoo ah xildhibaan cali muuse jaamac